dhegeystayaashayada qiimaha iyo qaayaha low halkani waa shabakada caalamiga ah ee dhexnimemedia.com waa maalinimo khamiisa saacaduna ay tahay 4 iyo barkii galabnimo taariikhduna tahay 18 bisha 8aad 2016 kuna soo dhawaada wararkii toddobaadkan oo idin akhriyo doono anigoo Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar iyo waliba Maxamed Jaamac Dhaanteeya qodobada toddobaadkan ugu waaweyn waxa kamid ah ciidamada South Sudan oo la eedeeyay askar ka tirsan amisom xabsi lagu xukumay sida gaarka u tababaranaya Soomaaliya loo yaqaan danab oo howlgal ka tiriyay gobolka kale ka tirsan Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheikh ayaa maanta si rasmi ah qaranka ugu duubay sharciga lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee xukuumadda qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idinku haynaa haatan iyagii oo fidsan ciidanka sida gaarka u tababaranaya Soomaaliya loo yaqaan danab ayaa howlgal ka fuliyay gobolka kala gedisan oo Soomaaliya ciidamadan gaarka ayaa tan iyo intii ay sameysmeen waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen goobaha ay saldhigyada ku leeyihiin ururka al-shabaab toddobaadkan gudihiisa ciidanka danab ayaa waxay galaalafeen guryo ku yaala magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya howlgalkan oo dhacay xilli saqdhaxa oo habeenimo ayaa ciidanku waxay ku soo qabteen hub iyo gaari la sheegay inuu lahaa sarkaal ka ururka al-shabaab u qaabilsan dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada Gaalkacyo oo ah xudunta isku xidhka Soomaaliya dhinaca kale isla ciidanka danab oo ay taageerayaan diyaaradaha Mareykanka ayaa waxay howlgal ka fuliyeen degmada Saako oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe halkaas oo ah meelaha ay ugu xoog badan yihiin ururka al-shabaab saraakiisha howlgalka fulinaya ayaa sheegay in halkaas ay ku dileen dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab howlgallada ay fuliyaan ciidankan danab ee sida gaarka u tababaran ayaan faahfaahin dheeri laga siin warfidiyeenka sababo la xiriira xeelad ciidan geesta kale ururka al-shabaab ayaan wax wara ka soo saarin howlgalkan ay ciidanku sameeyeen madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo wafdi uu hogaaminayay safar shaqo ugu anbabaxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya madaxweynaha maamulka Puntland ayaa la sheegay inuu halkaasi kulamo kula qaadan doono madax ka tirsan dawladdaasi Itoobiya madaxweynaha ayaa sheegay in safarkiisu uu qaadan doono maalmo kooban isla markaana uu shaqo muhiim ah u aaday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya Uganda oo ciidan boolis ah u soo diraysa Soomaaliya taliye ku-xigeenka booliska dalka Uganda Christine Alalo ayaa sheegay inay Soomaaliya ku soo dirayaan ciidamo boolis ah oo ka qayb qaadan doona sugidda ammaanka meelaha ay ka dhacayaan doorashada sanadka dalka ka dhacaysa Christine Alalo ayaa sheegay inay diyaarinayaan dhowr cutub oo ciidamo boolis ah oo booliska Soomaaliya kala shaqeyn doona sugidda ammaanka dalka inta ay socoto doorashada lagu soo dhisayo dawladda soo socota doorashadan ayaa waxay ka duwan tahay doorashooyinkii kale ee dalka Afrika ka dhaca sidaas darteed waxaan diyaarinaynaa ciidamo boolis ah oo doorkoodu yahay inay la shaqeeyaan booliska Soomaaliya inta doorashadu socoto ayuu yiri Christian Alalo taliye ku-xigeenka booliska Uganda wargeyska New Vision ee Uganda ka soo baxay ayaa qoray in jimcihii tababar loo xiray boqolaal askari oo boolis Ugandhi ah kanadsan kuwaas oo dhawaan ka soo biiri doona ciidamada booliska Uganda qaybta howlgalka AMISOM sagaal ka mid ah askarta Uganda ee ka tirsan howlgalka AMISOM ayaa xabsi lagu xukumay sabab la xiriira si xun u dhaqankooda sida lagu sheegay war ka soo baxay AMISOM askartan ayaa waxa lagu xiray dambi ah inay ku lug lahaayeen ceersashada ambeeriyada dana shakhsiyeed oo halis ku ahaa wax ku oolnimada ciidamada difaaca Uganda sagaal askari oo xabsiga lagu xukumay ayaa ka mid ahaa saraakiil ka tirsan AMISOM oo bishii June lagu xiray Muqdisho xilli ay ku guda jireen iibsashada shidaal ciidamadu lahaayeen maxkamadda militariga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin Muqdisho ayaa askartan ku riday xukun xabsi u dhaxeeya 1 ilaa 3 sano kasakow askarta xabsiga lagu xukumay 3 askari oo kale ayaa sidoo kalena laga yeeyay ciidanka iyagoo aan helin doonin wax lacag ah oo ku saabsan muddada ay ciidanka ku shaqeynayeen askartan la xiray ayaa falka dambiga ah bishii June ayaa ahaa 5 askari hase yeeshee baaritaano kadib ayaa lagu ogaaday inay tirada guud ee askartu ku lug leh falalkan ahaayeen 18 askari oo 6 kamid ah dambigaasi lagu waayay bandhiga buugaagta Muqdisho oo furmay magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay bandhiga buugaagta oo socda sanadkiiba 2 bandhig qabto bandhigan buugaagta ayaa waxaa lagu soo bandhigaa ilaa 3,000 oo buug oo ku qoran luqadaha Soomaaliga iyo kuwa qalaad intaba waxaa bandhigan ka qayb galaya in ka badan 30 qorayaal Soomaali ah iyadoo sidoo kale ay qayb ka yihiin qorayaal ajnabi ah bandhigan ayaa waxaa soo abaabulay qorayaal iyo dadka xiiseeya akhriska ciidamada Suudaanta Koonfureed ayaa lagu soo warramayaa inay
kufsadeen jirdileen dhac u geysteen shaqaale gargaaro iyagoo si gaarana u bartilmaameedsanayay mar hotel ku yaala magaalada Sajuba bishii Juulaay 12keedii sida ay waraysi warbixinay wakaalada wararka ee AB toddobaadkan siiyay qof markhaati ahaa oo wakaalada wararka wareystay ayaa sheegay in askartani sameynayeen dil been ah iyagoo ku qasbayay dadka ajnabiga ah inay banaanka u soo baxaan oo ay daawadaan sida ay u dilayaan wareeyaal gudaha ah AB ayaa sheegtay in dadka ku sugnaa hotelka Tareena oo ahaa meel caan ka ah oo ay deganaa dad safarka ahaa ajnabiga iyo dad sarsare ee ugu yeedhan ciidamada ammaanka ee qaramada midoobay ku sugnaa wax ka yar 1 kiiloomitir sida oo kalena u dhawaa safaaradda Mareykanka ergeyga joogtada ah ee Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Smart Power ayaa sheegay inay fashilmeen nabad ilaaliyayaashii qaramada midoobay iyo dawladda Suudaanta Koonfureed qarax ka dhacay Suuriya oo ay dad ku dhinteen kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Syria ee saldhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in qarax ka dhacay gobolka Idlib ee mucaaradku ka taliyo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof toddobaadkan kalena ay ku dhaawacmeen kooxdan ayaa sheegtay in khasaaraha loo malaynayo inay ka jiraan dagaalyahanada fallaagada iyo ciidamada ilaalada xuduudda ee Turkiga qof ismidaamiyay ayaa lagu soo warramayaa inuu suun uu ka soo buuxiyay walxaa qarxa uu ku qarxiyay gaari ay ku safrayeen dagaalyahano kaasoo marayay meel u dhow xuduudda magaalada Atmeh dawladda Syria ayaa ku eedeysay dhigeeda Turkiga inay fududeynayso qulqul dagaalyahanada iyo saadka ay ka helaan dhulka ay haystaan Suuriya ee ku teedsan xuduudda sidoo kale waxaa jiray warar sheegaya in dagaal kale oo culus uu ka soconayo magaalada Xalab halkaas oo dagaalyahanada mucaaradku ay ku minaysan u direen xaafadda Zahra ee ay maamusho musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa si bedel ku sameeyay ololihiisa doorashada waxa ka yar 3 bil ka hor inta uusan dadweynaha Mareykanka u dareerin goobaha codbixinta waxa uu madaxa sare ee howlfulinta u magacaabay Stephen Bannon oo ka tirsanaa website-ka muxaafidka ah ee Britain halka uu maareeyaha ololahaasi doorashada u magacaabay Kellyanne Conway talaabooyinkan uu Trump qaaday ayaan saameyn doonin Paul Manafort oo kala waday howlaha ololnimada tan iyo markii uu Trump bishii Juulaay shaqada ka eriyay madaxii hore ee ololihiisa Crofona Lodowska Manafort ayaa dhawaanahan waxa uu saarnaa tirada kadib markii uu wargeyska New York Times u daabacay warbixin la xiriira in lacag 12 milyan oo dollar kaash ah uu qaaday madaxweynihii hore ee Ukraine Viktor Yanukovych oo ku xidhnaa dawladda Ruushka Trump ayaa si aad ah ugu dambeeyay Hillary Clinton dhinaca codadka iyo ray'iga dadweynaha ee Mareykanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah qalinka ugu duugay sharciga lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda insaanka madaxweynaha munaasabadan khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in dhowrista xuquuqda aadanaha ay qayb ka tahay dhismaha dawlad wanaagga iyo in nabad cadaalad lagu noolaado saxiixa sharcigan ayaa waxaa si cad ugu turjumaya muhiimadda aan siinayno dhowrista xuquuqda aasaasiga ah iyo xorriyadda qof walba oo ku nool Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay tahay inuu helo guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha ayaa waxay noqonaysaa xafiiska ugu sarreeya ee dalka u xilsaaran inuu sugo xaqa muwaadinka sida ay tahay loo ilaaliyo cid walbana lagula xisaabtamo iyadoo la ixtiraamayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u degan ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu madaxweynuhu sidoo kale hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ballan qaadayso inay iskaashi iyo wada shaqayn buuxda u fidin doonto guddigan madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha iyo sida waajibaadka u gudan lahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha siyaasadda dalka isagoo ka warramay muhiimadda iyo xisbiya siyaasadeed oo samaysto khatarta siyaasadda qabiilka ku dhisan qoondada haweenka ku leeyihiin golayaasha siyaasadeed la soo dhisayo doorashada 2016 iyo in la dhiirigeliyo midnimada iyo dibdhiska dalka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in 15 qof oo lagu hayay xabsiga Guantanamo Bay ee dalkaasi Cuba laga soo wareejiyay dalkaasi Sutaga Imaaraadka Carabta warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramaysay 12 maxbuus oo kamid ahaa dadkaasi ay u dhasheen dalkaasi Yemen sidoo kalena ay jiraan kuwa u dhashay dalkaasi Afghanistan waa tiradii ugu badneyd ee maxaabiis ah ee loo wareejiyo intii uu xilka madaxtinimada Mareykanka hayay madaxweynaha Barack Obama waa hagaag akhiirta hawada sida tooska noogala socotay intaa waxaa inoogu eg wararkeenii toddobaadkan idin akhrinay aniyo Cabdiraxmaan Rashiid xagga farsamadana waa baxsanay xisi yaasiin intaynu wararkan kuwa kala mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo